dambi baad gashay waxaad tiri ragga Soomaalida majority way xun yihiin arrinta ka noqoba kule walaad waa khalad adduunka ma jiro wadan dadka ku nool majority xun yihiin adduunka ma jiro waa khalad weey arrintaas yaani kula fogaa in fact anu waxaan ku leeyahay Soomaalidaaba sidaynu badannahay dad xun baynu nahay waayo haddaynu wanaagsannahay inaad ragga Soomaalida xun yihiin waar dhegeyso riya hadday dib leeyihiin dalku maaragtay dabadooda ay ku qarsan lahaayeen inaynu xunnahay wax ku cadaynaysaa ummadda waxa Soomaa adduunka muslimiin jooga ummadda kaliya iyagoo muslim ah ay their own brothers muslimiin ku dulman yihiin oo aan guur loo ogolayn oo aan dhul loo ogolayn oo aan deegaan loo ogolayn oo waxa weeyaan wadanka Soomaalida ka jirta aniga haya maanin Soomaali waa dadka adduunka ugu liita ayaan anigu leeyahay inteena badan individuals wanaagsan way ugu jiraan ilaahay barakeeyay but the vast majority dad xun baynu nahay laakiin xitaa xumaantaasi ma aha inaynu ilaahay inagu xukumay waa midaynu inagu isku xukunay oo waxa weeyaan waynu ka soo noqon karnaa waynuna wanaagsanaa karnaa but sorry haddaynu wanaagsannahay way naga muuqan lahayd I'm sorry waan ka baxay anigu waxaan rabaa su'aasha aan rabo inaan weydiiyo Farxiyo Cabsi haday waxa dhahday macnaha aniga hadaan qof qalad ka galo ama bulsho aan qalad ka galo qof laba wax yar u sug saaxiib maanta ma hadleeday waxa dhahday qof la wada bilaa عليك sugday saaxiib meeg waa isii sabaxa maanta u soo galaysaa tag xanuunayso okay waxa dhahday macnaha bulshada Soomaaliyeed hadii aan qalad ka galo ama qalad qof aan ka galo waa imaada oo raali gelin inaan ka bixiyo ayaan sameeyaa soo marka bulshada Soomaaliyeed waliba hablaha Soomaaliyeed wax badan ayaa ideology-ga feministiga dhaxwaday wax badan ayaa waxa dhahaysay qoyan baatihiin wax badan ayaa dhahaysay ragga Soomaaliyeed ha guursanin markii finally ugu dambeysana adigoo mataqaana waxa guursatay oday waayeel ah oo waliba ahaan aad kaaga weyn adiga in cadaan ah marka bulshada Soomaaliyeed oo shalay aad aflagaadeynayso war sugday bilaa عليك bulshada Soomaaliyeed oo shalay aad aflagaadeynayay oo ay caanaysay raali gelin ma ka siisay arintii tan labaad waxa waaye gabar muslimada sheegata inaad tahay meeshan waxa saaran dad diintii ka baxay murtadiin ah sida Arweel oo kale maxaa kuugu saf ka dhigay dadka gaal wuxuu yahayba horta kaana yar adiga kaana qurux badan ma garatay meeshaad anigu daadu horta waa galad Ilaahay bixiyo waxa idin cuqdada aad ka qaadeen dadka cuqdada ka qaba daadu horta waa dadka guul daraystay oo waxa weeyaan psychologically waxa ka dhaadhacsan in hadii ay isyareeyaan maaragtay ay wuxuun maaragtay ay ka jaab sameeyaan marka cuqubada horta idinku dhacday taas waa taasoo Ilaahay galad waxa la weydiistaa cimri dheer iyo caafimaad saad been uga sheegaysan daadiina oo daada dadka ugu caayayseena guuldar idinku dhacdo waa idinka sida flyga u dhimanaya ee Facebook ka buuxa ma garatay ninkaygu wuxuu yahayba waa 49 jir football player ahaayo Ilaahay waxa weeyaan 6 feet 2 inches aho waxa weeyaan Ilaahay si walba u dhameystiray ma garatay oo masuula shaqadu maalintu 22 jir ahaa uu qabtay college ka markuu ka baxay ayuu maalin dhow maartay ka retire garoobaya gabadhu guursaday markay 19 jir ahaa ayay 2 sanadood ka hor kala tageen caruurtiisii wuu koriyay ma garatay sharaf iyo cisi oo dhan iyo karaamo dhan Ilaahay waa u dhameeyay markii xataa aanu muslim ahayn ayuu adiga iyo qabiilkaaga oo dhanba waxaan hubaa inuu ka karaamo badnaa siday u badan tahay waayo waxa laga yaabaa qabiilada Soomaaliyeed badankoodu inay gardarada iyo guuldarada iyo dhibaatada iyo cuqubada isku taageeraan and that's where I'm coming from marka waxa weeyaan ninkaygu wuxuu yahayba in aad nafiba nafti u roon waxa weeyaan raacday koowde marka waxa weeyaan wuxuu yahayba anaa ku jecel anaa ku raba 17 sanadood aniga sugay aniga waxa weeyaan maanta Ilaahay un baa